waxaa magaalada Gothenburg caasimadda labaad ee dalkan Sweden lagaga dhawaaqay xisbi cusub oo la yiraahdo xisbiga ciidda iyo calanka kaas oo sida lagu wado xubin firfircoon ka noqon doona hanaanka siyaasadeed ee dalka Soomaaliya oo la doonayo in lagu soo rogo hanaanka axsaabta badan. siyaasiga xisbigan ku dhawaaqay oo lagu magacaabo Maxamed Cabdullaahi Geedi Shadoor kuna magac dheer Ayro Cabdullaahi ayaa wuxuu soo jeediyay in arrimaha dalka lagu wajaho qaab wada tashi ah iyadoo wax la iska weydiinayo halka ay sartu ka qurunsan tahay jeer aan qofna laga tagaynin ilaa iyo intii suurtagal ah. Bismillahir Rahmaanir Rahiim. Daawadayaal waxaa dhawaanahan magaaladan Gothenburg caasimadda labaad ee dalkan Sweden xisbi siyaasi ah kaga dhawaaqay siyaasiga Soomaaliyeed ee Maxamed Cabdullaahi Geedi Shadoor oo ku magac dheer Ayro Cabdullaahi. Ayro Cabdullaahi ayaa waxaa noo suurta gashay inaan arrintaasi ka wareysano inagoo marka ugu horeysa weydiinayna sababta ku kaliftay inuu sameeyo xisbi siyaasi ah iyo xitaa magaca uu bixiyay xisbigiisa. Bismillahir Rahmaanir Rahiim. sababta ugu kaliftay in aan xisbi sameeyo waxa weeye in aan dalkii iyo dadkii Soomaaliyeed aan maantay isleeyahay cidi kaaga ma horeyso u sheegi lahayd in dalkii dadkii inuu gubanayo loona baahan yahay samata bixin si loo samata bixiyo dadku waqtigii hore waxa la dhigi jiray wariyaa tala og markii dhibaato dhacdo sidaas darteed maanta dhibaato ayaa dhacday waxaan u baahanahay in dadka la isugu yeero oo la yiraahdo wariyaa tala og waxaan ka bilaabayaa dadka xisbiyiinta magacaawday oo dhan inaan ku marti qaado oo iraado wariyaa tala og walaalahay yaa tala og si aan dalka dhibaatada uga saarno. Maxamed waa fikrad wanaagsan maxaa taasi waa yani aragtida guud haddii aad si yar waxoogaa mucayan ah ka dhigtay tusaale ahaan wadciga jira ee dalku haatan taagan yahay waad la socotaa maxaa kaaga qorsheysan oo aad ku abaaraysa ama ku wajahaysa wax ka qabashada arrintaas marka ugu horeysa ka xisbi ahaan? waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in aan ka soo qayb galo oo aan dadka iyo dalka Soomaaliyeed taladiisa meel ugu qabanayo. waxaan dadka ugu yeerayaa siyaasiyiinta Soomaaliyeed odayaasha culamaa diinka cid kasta ugu yeerayaa in aan bislaanay dhibaatadiina ayna dareensiisay in aan dhawaaqno nagu kaliftay waxaan maadaama dhibaatada ay badatay waxaan loo baahan yahay dadku maalinba heer buu soo gaaray maanta waxay joogtaa warsiyaan wax ku xalinaa maxaa noo xal ah yaa na xalin kara maanta ma joogto heer kursi iyo wax laga hadlo waxay joogtaa maanta dhibaatadii warseen ku badbaadinaa dalka iyo dadka. waa gartay xisbigaaga magaciisa? xisbigayga waxaa la yiraahdaa calanka iyo ciidda CC waxaan rajaynayaa in mid dadka iyo dalka mideeya inuu noqdo oo qof walba ay ha tiraahdo. waa gartay xisbiga magaca markaan eegno sida ka muuqata calanka iyo ciidda wuxuu og yahay xisbi nationalist ama xisbi wadani ah waxaa jira xisbiyo badan oo aragtidaas aaminsan oo wadanka Soomaaliya hadaba ka dhisan oo midnimada Soomaalinimada wadaniyada waxyaabahaas ku shaqeeya axsaab aad noocaas oo kale tihiin maxaad u raadin weyda oo ugu biir weyda halka adiguna aad xisbi ka sameyn lahayd? dadku waxay u badan yihiin ama talo markii la raadinayo waxaa la rabaa in la helo horta qof dadkii isku wada wici karta. xisbigii waxaan u sameynay in dadka iyo dalka dadka in la isku waco oo la yiraahdo war maxaa noo tala ah waxaan la ahay ilaa hadda xisbiga yiraahda war maxaa noo tala ah warsan dhibaatada uga baxnaa axsaabta dhan way yiraahdaan laakiin maxaa noo tala ah iyo sida dhibaatada uga baxnaa kulli haday wada dhahaan intaan ba xisbi ma samaysmi lahayn. farsamo ahaan marka xisbigaaga la yiraahdo calanka iyo ciidda aragtidiisa marka aad fiiriso inta badan dadka Soomaalida waxay yiraahdaan axsaabtu inta badan aragti ama ideolojiyad kuma fadhiyaan marka qaar waxaad arkaysaa qofkan oo xisbigan ka tirsan hadana xisbi kale oo ka soo horjeeda aragtidiisa marka aad fiiriso ku beeray marka xisbigaagu ma leeyahay aragti ama maxadda siyaasi wax loo yaqaan oo rasmi ah oo fadhida oo mabaadi la yaqaan ku fadhiya? absolutely xisbigii wuxuu leeyahay mabaadi la yaqaan oo ay
aan tilmaamayo weliba si gooni aan u tilmaamayo maxaa ka mid ah waxaan leeyahay war maantay waxaa naga maqan maandeeq nagama maqna kursi doon ma ihi aniga for example maanta waxaa iga maqan dalkaygiisi iyo dadkaygiisi nabad iyo ay ku heli lahaayeen oy deganaansho iyo nabad iyo barwaaqo ay ku heli lahaayeen waxaa noo diidana waa tafaraaruqa iyo iska dabaqaylista waxaan u baahannahay in aan wada jirno gacmo wada jir ay wax ku gooyaane war aan u wada tashanno aan ka wada hadalno aan ka midoowno dalka iyo dadka sidii wax lagu brito oo wax ku noqon lahaayeen maandeeq sidii lagu heli lahaay aan maantay dhidbaheeda aasno oon aasaas u noqono xisbigayga arrimihiisa taasaa ka mid ah waa gartay wadanka Soomaaliya muddo dheer ayuu dagaal ku soo jiray dadka inta badan waxay sheegaan in wadanku uu toosi lahaa laakiin ay dhibaato badan ka haysato faragelin caalami ah oo dhinacyo kala duwan uga timaada adiga ka Maxamed Cabdullaahi ahaan iyo xisbigaaga ciidda iyo calanka arrimaha dibadda maxaa kaaga degsan oo kaaga qorshaysan waxaa iga qorshaysan muddo badan ayaan dhageysanaynay rag badan baa lagu abaal mariyay in dalkaygii iyo dadkaygii xira la gashado waxaan aad uga xumahay dadka lagu abaal mariyay ee Soomaaliyeed ee birita raba inay masraxa siyaasadeedna soo fuulaan laakiin maanta waxaan dadkaygii dalkayga u sheegayaa inaan kursi kaliya uusan waxba tarayn ee loo baahan yahay meel kursiga la dhigto marka ugu horeysa maantay waa badbaadadii qaranka Soomaaliya la badbaadin lahaa adduunyada ilaahay United Nationska qaramada midoobay iyo mataqana Europe iyo meel walbaba faragelinta dadka Soomaaliyeed hal shay aan ka leeyahay wax badan ayaan dhageysanaynay 20 sano muddo ku filan ayaan baadsiyanso u haynay in tala ka timaada qaramada midoobay iyo National Security Council-ka aan qaadano waxaan codsanaynaa oo xisbigu si aad u codsanaya in balkalkeena nala tijaabiyo Soomaali ahaan inaan dalkeena iyo dadkeena inaan ka tali karno dad u tali karana ama wax ka tari kara dalka ee fikirkiisa iyo dhaqankiisa ay wanaagsan yihiin inay jiraan ayaan rabaa in adduunku inaan u muujiyo waa gartay waxa jira qodobo lagu tilmaami karo kuwa cadaadis ku haya ama dadku isku khilaafsan yihiin tusaale ahaan federaalka oo kale adigu xisbigaaga maadaama uu yahay ciid iyo calanka wuxuu u xaglinayaa dhinaca centralized system in wadanka lagu soo rogo lagu soo celiyo maadaama federaalka weli aan loo qaadin afti oo aan sharciyan ilaa hadda federaalku uusan rasmi ahayn mise waxaad leedahay federaalku waa nidaam haddii aan la khaldin la isticmaali karo waa mahadsantahay waxaan kuu sheegayaa walaalkay dad oo aan isku diinna ahayn isku afna aan ahayn isku dhaqanna aan ahayn ayaa loo sameeyaa regionalka annaga hal af hal diin hal dad ayaan nahay waxaan xisbigaygu taageerayaa in loo sameeyo dowlad central ah ee regional maba taageeraya aniga laakiin federaalku waa system dabcan muhiim ah in dadku ay kala af iyo kala dhaqan yihiin iyagoo isku dhaqan ah federaalku waa nidaam gobolada lagu siinayo awood ay ama xukun hoosaad ay howlahooda ku maareeyaan Jarmalka oo kale tusaale ahaan waa isku dad waa isku nooc haddana wuxuu leeyahay federaal marka ma waxaad ku dhaliilaysaa qaabka Soomaalidu isticmaalayso qabyaalada iyo waxyaabaha la midka in lagu saleeyo mas federaalka laftiisa yani xisbiga ka soo horjeeda absolutely waxaan ka soo horjeedaa labada shayba waa maadada ugu horeysa Soomaalida horta waxay ablikaariyaysaa qabiilnimo waa maadada labaad waxa waaye ayadoo isku af iyo isku dhaqan hadana leeyahay ay hadana federal system hadana oo jira dadku uma bisla Soomaaliyeed heerkaas maanta waxaan u baahanahay badbaadin in dadkii horta loo bisleeyo nabad caana oo ay helaan oo ay ku fikiraan kana tashadaan haddii ay regional autonomy ay samaysan lahaayeen oo goboleysi ay ku tartami lahaayeen oo horumarkoodii iyo dhaqankoodii iyo dhaqaalahoodii waxooda dhan uma bisla Soomaalida maanta diyaarna uma sida aniga ila tahay waa gartay
waxyaabo inta badan waxaa jira ilaa hadda aan wax badan laga qaban sida dhisidda ciidamadii Soomaaliya waxaad moodaa in laga meermeero wadan haddii uusan ciidan lahayn dabcan waxaa qasab ah in uu ama ku tiirsanaado dad kale ama uu marka dambe isku dhex daato xisbigeenu wax muhiimad ah oo uu siinayo in ciidamadii Soomaaliya la dhiso si buuxda ma jirtaa absolutely waxaan aad iyo aad ugu xumahay in dadka investmentiga ku sameynaya Soomaaliya ama shakhsiyaadka ah ama dawladaha ah kharashka badan ku bixinaya sida example amisom oo kale in wiilka Soomaaliyeed oo majaaca kaga dhinto asoo qoriga haysto $100 laga siiyo kuwa kalena ay lacag badan ay qaataan ay guryahoodii iyo dib wadamadoodii ay ugu noqdaan waxaan aad iyo aad ugu xumahay lacagtaasi inay bari ka maalin inay aniga u socoto oo xisaabkeedii Soomaali laga rabo ayaan aad iyo aad ugu ogahay aniga dadka Soomaaliyeedna waxaan rabaa inay ku baraarugaan waxa la siinayo dadkaas in birrita kharashkeeda aniga leega Soomaali ahaan noogala wada rabo waxaan leeyahay war annagana waa idin jeednaa taladiinuna ma anfacdo meeshaad wax ku wadiinna waa hashiyood xeraysateene fadlan maadaama aan idin ognaho dhabarkiina noo muuqdo hanaga sii jeesanay soo jeesta arka waxa aan dadka iyo dalka ka damacsanay dalka anaa leh dadkana anaa leh mana rabo in wiilka Soomaaliyeed baay ku dhinto wiilka kale ee laga keenay laga soo ijaaray Uganda iyo mataqaana iyo meelaha kalena oo dalkiisii iyo dadkiisii oo kula noqdo xoolaha aniga birita laga rabo sidaas darteed waxaan leeyahay war investorsko idinna waa ii baahan tihiin oo waxa dalkan investment ugu sameeysanaysiin inaad wax ka heshaan anigana waxaan u baahanahay dalkaygi in la investment lagu sameeyo barwaaqadii aan helo oo cilmiga iyo teknolojiyada ay soo gaaraan sidaas darteed waxaan leeyahay budaqaba iyo biiqaba way isku baahan yihiin aan wada hadalno and let us negotiate waa tahay inta badan investorska ama waxa loo yaqaano waxa loo jeedaa maalgeliyaasha ayaa farta lagu taagaa laakiin inta badan wadanku laftiisa waxba soo saara wuxuu leeyahay canshuur baa dadka laga qaadaa dekada iyo garoonka iyo dadka caadiga ah haddana inta badan 99% dadka wax lagu maceliyo oo adeeg dawladdu qabato ay tiraahdo lacagta aan qaadnay baan ku qabanay inta badan ma muuqato ciidamada mushaarkooda xitaa inta badan wixii la bixiyo waxa bixisay UNDP waxa jira musuq baahsan waxyaabahaas oo hadii la sixi lahaa wax laga yaabo in cid kasta mushaarkeeda laga soo saari lahaa dalka ama haddaba laga heli karo arrintaas sidee kula muuqataa arrintaas waxay aad iyo aad su'aas jawaabteeda waxa ku haboonaa lahaa horta madaxweynaha iyo maamulka ragga adiga xisbi ahaan ujeedkaaga maxaa qaabkee doonaysa inaad uga qabatay lacag hadaad noqon lahayd qofkii talada haya haddii aniga tayda ay noqoto maalinteeda ay soo gaarto musuqmaasuq iyo waxaas iyo iska dawareeg dama maba dhici lahayn sababtoo qofka Soomaaliyeed wuxuu u baahan yahay nolol haddii qofka noloshiisa meel loo saaro musuq maba jiri lahayn baahida iyo dhibaatada waxay ka imaanaysaa oo musuq keenaysaa inaan qofka Soomaaliyeed horta la baahi tirin asiga wuxuu qofku ku shaqeeyaa haddaan la baahi tirin asiga wuxuu ku qasbayaa dabcan inuu musuq inuu sameeyo laakiin haddii la baahi tiro qofka Soomaaliyeed ee adeegii gurigiisii iyo naftiisii uu u baahnaa la siiyo nabadgelyadiisa tam laga dhigo musuq ma baahna waa garta ugu dambeyntii inta badan dadku waxay yiraahdaan axsaabtu waa suitcase ama waxay ula jeedaan in xisbigu yahay boorsan oo ninba intuu xisbi ku dhawaaqo magac kaliya iyo magac xisbiga iyo magaciisa uun aan la arko oo aan la arkin xisbi leh nidaam xisbi qaab macahad u dhisan kala dambeyn iyo qaab kala sareyn ah leh arrintaas sidee u aragtaa xisbigaagu sameeyaa heykal iyo nidaamkii xisbi lagu yaqaan waa mahadsan tahay nidaamkii iyo xisbiga heykalkii lagu yaqaan xisbiga waa leeyahay haday jiraan xisbiyo kale anigu ma ogi laakiin anigu nidaamkayga waa noo dhisan yahay gudoomiye ku-xigeenkeena xisbiga waa maxamed saalim maxamed ibraahim waxaan leenahay xogayaha isboortiga iyo dhalinyarada
maxamed rashiid goobe waxaan leenahay gudoomiyaha ururka haweenka oo xogayaha ururka haweenka iyo dhalaanka ah maryan runey gabar la yiraahdo ayaa noo ah inta kale ee hadda arin soo magacyadooda liiskooda hadda aan faraq aan ku hayna shirka jiraayad soo socda hadii ilaahay ma ayaan kusoo baahi doonaa waa tahay aad baad u mahadsan tahay gudoomiyaha xisbiga cusub ee calanka iyo ciidda maxamed cabdulaahi geedi shadoor oo ku magac dheer Cayro Cabdulaahi oo aan ka wareysanayna xisbigaas cusub oo uu kaga dhawaaqay magaaladan Gothenburg ee caasimadda labaad ee dalka Sweden aad baad u mahadsan tahay Cayro Cabdulaahi thank you adiga